ayadu majnuun ba markay adiga oo u galmoonayeen dad kaamera ka duubtay ay waxa weeye weli ku sii rabto miyaysan ehel lahan wala lama dhalin miya ehel lama dhalin miya hooyo ma dhalin miya aab ma dhalin miya waxaas ma u heshiiyeen gabadhan oo in la soo qarxiyo marhaali bay ka ahaayeen waayo muuqaalka uu ayada ka duubayo marka uu waxa weeye shaqada hayo oo uu foorarinayo ama shaqada halka ku socoto in waxa weeye muuqaal ku dul hayo haddana kaamera ka duubanayo hadhowna waxa weeye uu meeshii ku reebta ku safgaristo wax weyn waayo snapchatkii asaga uu lahaana inay passwordka ay xabsa ku winayso ayadana waa arrin la yaabkeeda leh leeyahay dhibka ay u geysteen ay isu geysteen waxaa ka badan 100 jeer dhibka loo geystay gabadhan miskiinta qoraaladii ay isu dhex mareen ama isla dhex mareen waad arki kartaan waxay leedahay waan ku aaminay waan ku jecelahay wax walba u baahatana waan ku soo diraya xabiib sidaas lamda wuxuu marka asaga qaar ku dhiirigelinaya inuu leeyahay maxaad fiidiyowga iga dhilid garaysay waan ku raaxaysanay ii soo celi shaki baa marka halkaas ka imaan karo waxa la oran karaa soo dhawaada waan salaamaya dhammaantiin xafsa kuweyn waa gabar baraha bulshada aad u isticmaasha facebooka iyo tiktoka iyo youtube-kana si fiican looga yaqaan xalay ayay ahayd inay waxa weeye soo qarxisay wiil la yidhaahdo hanad sida xaqiiqda muddo hadda laga joogo sanad ayay waxa weeye baraha bulshada noogu muujiyeen inay xiriir ka dhexeeyo jacayl romantic arrimo noocaasa baraha bulshada waad garanaysaa laba qof markay yimaadaan waa la isku arkayaa heesa loofaa la isku qaadayaa arrimo maasha allah waad arkaysaa kadib markii la soo qarxiyna waxaad ogaanaysaa xaaladda meesha ku dambeysay baraha bulshadana qaabkaas ay u shaqeeyaan dadka dhahaya maxaa looga hadlayaana waxaan leenahay wixii horteena kaamirada imaada waa laga hadlaya waa laga sheekeynaya sida caadiga okay haddaba marka xabsa kuwii wiilkii ay mataqaanaa baraha bulshada ay soo dhigtay ama ay isla socdeen ayada aan ku barannay sida xaqiiqda ah waxay u muuqataa inay wiilkii isku dhaceen asagu dalka reer Kenya ma ahayn asagu wuxuu ahaa reer Sweden kadib markuu soo laabtay gabar kale ayuu waxa weeye xiriir la sameeyey ama waxa qaba hadduu rabo wuxuu doona ha ahaado laakiin gabadha dambe ayay dhibta ugu way ku dhacday xabsa kuwii waxaa laga dareemay inay ka yara masayrtay ninkii odaga ahaa masayrkaas dartiisna inay snapchatkiisii oo ay passwordka haysay ay mataqaanaa gudaha u gashay oo ay camera noogu dul qabatay oo ay soo duubtay muuqaalno anshaxumo ah oo ku dhex jiray snapchatka su'aalo badan baa ka imaan kara marka waxaa noqon kartaa inay waxa weeye ay isaga ceebeynaysay waxay noqon kartaa inay ka masaysanayd waxay noqon kartaa inay isleedahay yeesas calfan ad waxyaaba noocaas oo dhan xagga iska dhig arrintan wiilkan ayaan rabaa inaan ku nuxnuxsado sida xaqiiqda ah ninka ragga ahi markuu galamada samaynayo ama xaaskiisa ama gabar waxa whatever uu samaynayo xaaladaha noocaas sariirta inuu camera intuu qabsado uu waxa weeye asagoo galamadii samaynaya uu soo duuba waxa weeye wax aad u foolxun weeye hamigaaga iyo dareenkaagu inuu xasuusto ma ahan adiga oo waxa weeye shaqadii qaranka ku jira inaad waxa weeye camera loo fariisto taas waa tan wiilka tan gabadhaan raba marka inaa ogaa labadan qof ee isku dhacay waxaa la yidhi meel waxa weeye elephant ama maroodi ku dagaalamay ama mataqaanaa maroodi isku hardiya dhagax baa ku jajaba soo maahayn alaabtii waxa weeye reer koonfureedkan ku tuuranaya labadan qof ee ishardinay ee xabsa kuweyn iyo wiilkan hanad leeyahay dhibka ay u geysteen ay isu geysteen waxaa ka badan 100 jeer dhibka loo geystay gabadhan miskiinta qoraaladii ay isu dhex mareen ama isla dhex mareen waad arki kartaan waxay leedahay waan ku aaminay waan ku jecelahay wax walba u baahatana waan ku soo diraya xabiib sidaas lamda wuxuu marka asaga qaar ku dhiirigelinaya inuu leeyahay maxaad fiidiyowga iga dhilid garaysay waan ku raaxaysanay ii soo celi shaki baa marka halkaas ka imaan karo waxa la oran karaa xabsa kuweyn iyo hanad ma u heshiiyeen gabadhan oo in la soo qarxiyo marhaali bay ka ahaayeen waayo muuqaalka uu ayada ka duubayo marka uu waxa weeye shaqada hayo oo uu halka ku socoto inuu waxa weeye muuqaal ku dul hayo haddana camera ka duubanayo hadhowna waxa weeye uu meeshii ku reebta ku safgaristo wax weyn waayo snapchatkii asaga uu lahaana inay passwordka ay xabsa ku winayso ayadana waa arrin la yaabkeeda leh baraha bulshada haddii maalinba maalinka ku xigta wax noocaas oo kale la caadaysto caadi bay ka noqonayaan waxaynu rabnaa inaynu waxaan ka dhiidhino waxyaalaha noocaas oo laleeyahay hadda asagu tiktok uu soo dhigay adiga waxba maad igu samayn gaara aniga imaad ceebin gabar heblaad ceebaysay may saas maaha adigaa ceebaysan adaa dulli ah adaa gabadhii miskiinta ahayd ee ku aamintay ee nafteeda iyo waxa weeye dadnimadeeda iyo muuqaalkeeda iyo nafteeda kugu aamintay adaa soo dhigay baraha bulshada waayo sidee inta snapchat ugu duubto haddana telefonka ugu saafgaraynaysa telefonkani waa stupid qof kastaa kaa qaadan kara sidee gabar aad waxa weeye la galmooto xaaraan iyo xalaal waxay doontoba ha ahaatee sidee baad waxa weeye baraha bulshada ugu reebtaa weliba qayb ka mid snapchatka ayuu ku jirtaa waryaa arrinta marka aniga shaki badan baa halkaa iga galay oo waxaan isleeyahay xabsa kuweyn iyo gabadha iyo ninkaan waxa weeye hanad qasqas la leeyahay ee kareemka qasqaska marsanaya wayba u heshiiyeen inay soo qarxiyaan gabadhan dad mala miya ehel malaha miya isla maantana muuqaal ammaanu soo dhigay muxuu leeyahay heblaayoy waa ku jecelahay xaggay ka dhacday waa lagaa masiirsan yahay ayadu majnuun ba markay adiga oo u galmoonayeen dad camera ka duubtay ay waxa weeye weli ku sii rabto
miyaysan ehel lahan wala lama dhalan miyaa ehel lama dhalan miyaa hooyo ma dhalan miyaa aabbo ma dhalan miyaa waxaasoo kale rag adaa ceebiyey in gumeed kala laarin baad kaamira ku dhex waashay qasqaskii kareemka dhaha la marsada miyo runtaan ugu sheegayaa anadu kastoo wax baraha bulshada aadan wax qof laga yaqaan hadda aadan ahayn haddana tiktokaad xoogaa wax bay ka taqaanaa asagana waa lagaa dabageynayaa runtaan ugu sheegayaa sidee gabadhaadii waxa weye naftaadii kugu aamintay kaamirad maxaa keeni kara kaamirad qofku mashaqo kaluba hayaabay sidee kaamira u imaan kartaa meesha su-aasha ugu daran ba taas weye adoo galmoonaya sidee gabadh maxaa kaamira u dulaan karta xafsa kuwiin waxaan leeyahay in adeer gabar baa tahay dhibka ugu weyna waxaad u geystay gabadha in adeertaa nolosheeda inta ka dhimana waxa weye dhaawacaas aad u geysatay oo ku oolaya shalay gabar kale waxa weeye faham qurux tii ku dhacday ee ilaa iyo hadda ay muuqaalada calaacalka ay oohinta usoo dhigayso waxaa u geystay wiil dhalinyara oo waxa weeye ay aamintay maantana xafsa kuwiin iyo hanad waxay gabadhan u geysteen sidii waddadii faham qurux ay martay marsiinayaan inta goorta waxaan leeyahay gabadhan dadkii dhalay waxa weeye arrintan ha ka dhiidiyaan wiilkaana gacan ha ku dhigaan arrintaana waxa weeye maxkamad ha lagu saaraniyo waddan qurbaha uu joogaa Sweden buu degan yahay si wanaagsan ha loola xisaabtamaada macaan haddii kale waa la caadaysanaya kaamira soo fadhiya imaanka Allah ka qaada maxay kaamira loo fadhiistaa hor naga qari wejigaa gubay naga qari wejigaaga naga qari gabadhana ceebaysay ehelkaaga ceebaysay tolkaaga ceebaysay sharaftaada ceebaysay dadnimadaada ceebaysay waan wax soomaalinimo arrin soomaalinimo ma ahan arrin waxa weeye bini'aadanimo ma ahan arrin muslimnimo ma ahan arrin daaradnimona ma ahan kuguna taageeri minahan saas runtaan ugu sheegayaa nin khaladka ugu weyn waxaa iskale waa adiga wariyaa stupid baad sidee gabadhaadii oo ugu galmoonayso wariyaa xataa xaaraan iyo xalaal waxaan ku qabay sideed kaamira ugu dulhayn karta adoo weliba saa u foorinaya wariyaa dhaqan xumada xagee ka keen sawirka noocaas idiin muuqda ilahay baad ku dhaashay qofka noocaasa ma qof baraha bulshada ku jiri karaa akoonadiisana ha laga xiro hana la dabagala cunuga xunkaaniya ha laga saara hawada dhaqan xumo sii wada haddii kale waa sii wada snapchatkiisana hawada laga saara gabadha miskiinta caawa maxay ku suganta stress baa ku dhacaya pressure baa ku dhacaya nin haddii lug iyo gacan maanta wax bay gabadhaas ay goodo oo ay qalasho wallahi isaa ka dambeey xabsa kuwiina waxaan leeyahay inaad baraha bulshada isticmaashaa gabar baa tahay karnaageed kaba isma dheera asaga maada ceebeen gabadha ceebis waxyaalaha dhaqan xumada noocaasa jooji qoraalada markii si fiican loo sii fiiriyay waxaa ku jira lacagii tiktok loo diray oo ku shukaansanaya gabadha waxaa ku jira waxa weeye qoraallo uu ku leeyahay inaad meesha hore ma rabin hoos meesha hore ma rabin kor inaan geliyaan rabibaan dabadan kaa isticmaalaya qof noocaasa weye qofka waxa weeye aad wadaan caawin waxaas dib dambayaan looga hadlin cunugaana waxa weye baraha bulshada waxa weye waa laga saaraya dhib dhaqan xumo noocaas oo kale Soomaaliyeed u dulqaadan meeshii lagu arko cunuga lagu karbaash waa karbaash qofka dhiiri gelinay wax noocaas dhiiri gelinay oo raba inuu ay sii socon waa hore u soco keep going ku hayana adeer waxa weeye waxaad ku socotaa dulmi weeye gabar inaad tahay walaashay caawa ooysan iyo sanadku ku hoodaysa qasqaso marka adeer waxa weeye khaladaadkaaga waa batay adiga oo waxa wixii midda kale qoraalka snapchat markii la wada hadlo way loo saf gareynaya qofku marka wada haashaan hawada ka baa baxaya sidee u safe buu u yahay ereyga kula hadlay waa safe buu yahay dad inay kala hayso ku ogaantaa ورد بايدي سلام يا أوديك محتمل كحناقصن بحكي بدأ ولا شمس كين تعلو جيستي إلى يوحنا لنا كولا قلبي هو قوتي أد بايدي سلام عليك